beeyay laakiin Soomaalidu waxay lahayn jirtay xeerar ay ku kala hagaagto in fact waa xeer dastuurku waa xeer Soomaaliya hadaan nahno waa xeer weeyaan xeerku waxa weey waa wax aan ku kala baxayno reeru dastuur baa xeer bay lahaayeen hadii ay wax dadka iska dilaan dhexdooda hadii dad kale wax ka dilaan hadii wax la kala dhaco sida loo kala baxayo dastuurka marka wuxuu noo tilmaamayaa qof walba wadada ay tahay inuu maro waayo hadii la yiraahdo iskarab yaaco waxay noqonaysaa dalkii jaanta rogan uu wareeraya adduunka constitution ayaa dadka kala saara ama xeerku wuxuu ka xoog xeerku waxaan soo karnaa waa dunta isku xidha tusbaxa quruxda badan ee lagu tasbiixsado aad aragto la sito dun yar ba isku haysa dunta hadii meesha laga saaro tusbaxu bahla yar wareegsan Soomaaliga ma garanay laakiin waxa jirta bahalaha xabad halkii xababa ama halkii ilba aan dhahno iluu leeyahay il kasta gooni bay aadaysaa hadii saa loo firdhiyo marka xarigaas weeyaan xarigaas dadka isku haya marka hore wuxuu u baahan yahay xiridiisa in laga wada qayb qaato oo dadku dhan ay ka wada qayb qaataan oo fahmaan markii lagu heshiyo la asixin in la wada ilaaliyo hadii la wada ilaaliyo waxa dhacaysa inaan la isku dhicin oo dadka marka xukuumadda maamulana ay ixtiraamaan dadka lagu maamulanayana ay ixtiraamaan si wada mid ah hadii isaga la jabiyo marka waxay noqonaysaa tusbaxa kala yaacay dadku way kala tagayaan marka waxaad moodaa dadka Soomaalidu si guud منطقة degan oo dasaatiirta xataa kuwa aan Somali Republic ka tirsanayn inaysan deegaanadooda aad u fahansaneen xataa dastuurada laga dhaqmo oo iska yaacaan waxa fiican dastuurka in dadku akhriyaan oo bartaan si ay manfaacadiisa u helaan dhibkiisana aan lagu dulmin oo iska ilaaliyaan baan soo ran lahaa marka ustaad Maxamed maxaa ta ku daraysaa runtii dastuurku wuxuu ka mid yahay wuxuu ay dawladuhu ku jiraan waxyaabaha fahan la'aanta ba'an ay naga haysatana waa ka mid waxaan isleeyahay marka waxyaabaha keenaya ama sahlaya fahan la'aanta dastuurka waxaa ka mid ah dastuurka horta wuxuu ku qoran yahay waa mare wuxuu ku qoran yahay erayo aad u adag marka ma sahlana in la fahmo dastuurka qofka akhrinta yaqaana inuu dastuurkaasi sida uu yahay u fahmo ma sahlana inta waxaa noo dheer anagu maba ahaba dad bulshadeen inta badan dad wax akhriya maaha malaa wixii ku runaan lahayn baan isleeyahay in loo sharaxo oo afka looga sheego waliiraad qodobeel waxaas uu qorayaa oo ay dhageystaan ilaan dhageysiga waxay kaga fiican yihiin akhrinta iyadana ma jirto waxaa iyadana halkaas in la xuso mudan aragtida diinta oo iyada laftigeeda maaragtay aad moodid dadka inay u bahalagelisay dastuurka oo la nacbaysiyo si kale loogu sawiray dastuurka si kale loo dhigay way dhici kartaa bini aadan baa qoray wayna jirtaaba khaladaad inay jiraan ama dhaqanka Soomaaliya laga galo ama wax diinta khilaafsan maaragtay waa laga yaabaa in ku dhex jirto laakiin wax badan ma aha saasay tahay waxaa la rabaa waxaas marka in la muujiyo oo la yiraahdo ka ayaa khalad ka jira laakiin inta kale waa caadi marka intaas baa waxay isku qabsadeen bulshada Soomaaliyeed oo marka horena fahan la'aan ay ka haysay waxaan la yiraahdo nidaamka dowladnimada oo dhan dastuurkana warkiis badaa daraaddeed wuxuu noqday qulub xaaraan ah oo kale oo maaragtay dadku ay sida u arkaan ayay noqotay xilna la iskama basaaraba wayna fiicnaan lahayd dastuurka in aad loo maaragtay dadku fahmaan oo aad loo jilciyo oo xitaa ereyada uu ku qoran yahay Soomaaliga ereyo fudud laga dhigo dadka si shacabku u fahmaan dadku u fahmi karaan ama xitaa duruus caadi ah oo maaragtay
maaragtay la dhegeysto maadaama Soomaalidu hadda ay idaacadihii ka soo guurayaan oo dhinaca telefishinada ama muuqaalbaahiyada ay u leexanayaan in muuqaalbaahiyaasha looga baahiyo barnaamijyada dastuurka ku saabsan oo si ay u fahmaan ayaga laftigooda waxa lagu maamulayo oo dalka lagu wadayo waxna uga dhihi karaan wixii khaldan ay farta ugu fiiqi karaan taas waxaan oran lahaa waa very important aad baa u dhigteen adigii maxamed wariye Ustaad Cabdullaahi Daahirba waxaan doonayaa ku daran waxay tahay bulshadeena laba nidaam baan soo maray laga soo bilaabay 60 ilaa maanta 2020 joogo nidaam waa nidaamkii santa dawladda dhexe macnaha ay awood badan lahayd kasoo bilow rayidkii dawladda hoose suxur waxa loo dooranayay nidaamkii dambe 22 Oktoobar hortay 1969 wax ka sana aad u sii adkay xogaa dhexdhexaadnimadii dawladda dhexe aad u soo xoojiyay marka iyo wixii ka dambeeyay shirkii Nairobi loo qoro 4 bagaasi oo ay ka soo baxday fikradda ah dastuurka federaal laga dhigo bal dabcan xalka Soomaaliya la hoos laga soo bilaabo si macna isku yimaad meel sare oo dawladda dhexe ana marka bulshadeena waxaan ku baraarujin lahaa mushkiladu ma ahan dastuur central dawladda dhexe maamusha iyo federaal labada ma aha federaalna janni iyo naar ma sababayo centralna macnaha janni iyo naar ma sababayo markaas waxa loo baahan yahay in wacyigooda sareeyo iyo dawladnimada fahmaan waa dadka federaal baa la qaatay macnaheedu maaha in qof ka samaacna tuulida soo taga macnaha oo dawladda qodobka barwaaqo noqonay macnaha sanad dawladda xaalad ayda macnaheedu maaha in wax kasta barwaaqo la geliyo barwaaqo noqonay aydan maaha marka waxaan oran lahaa aragtiyada isdiidan waa in wacyi ugu saleeyaa oo tanaasul yimaada oo balsaha laga dhigo xataa federaalka naftigiisa markii laga hadlayo xitaa oo qaybo badan yahay نفتي حتى بالدولار لو قدر الدستور كاتو دولار ما كسعده بل لو قدر إلا هذا ما أفكر الدستور كان نظام كان لو حبون كلي واحد لقى الدولار قدر بدل هذا حاجة أو خيارات قيب سجائيو أو دادجنتي وحسب على هذا حتى السهل دي والله ديان ولي ما أفكر سيد ولي ما أفكر أيضا الدستور كسبان الدولار اللي قلنيه فدرالك حتى أنا حيسن أنت أفتدوا ولا جاري كمان وسي حبون marka Cabdullaahi ku rajina wuxuu ku dalaa waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka qodobka dastuurka hadii aan wax yar ku laabto waxaan ku dari lahaa marka dastuurka dadku ay ka doodaan oo ay fahmaan kadibna la asixiyo inuu dastuurku noqdo waxa kaliya ee dadku kala baxaan qofna uusan dhaafi karin waxaan inta badan maqashaan dadka Soomaaliyeed oo yiraahdo hadal haynta oo tiraahdo ninna sharciga kama sareeyo tusaalahan dawladaha adduunka markaad fiiriso ugu qodobada weyn sida Mareykanka oo kale ma dhici karto qofku intuu soo ordo uu talaabo iska qaado oo dastuurkii jabiyo wixii lagu heshiiyay isagoo awood isbidaya tusaale madaxweyne Trump oo kale waxa lagu qabsaday qodobo dastuuri inuu jabiyay dalkii oo dhan baa ka saxaafadii baa kacday maxaan ku dhahdaa waxa kacday shacabkii baa kacay axsaabtii mucaaradka kacay jaamacadihii baa kacay dadkii oo dhan baa ka qayliyay kadibna waa la baaray inkastoo markii dambe la bari yeelay haddana waxa la sheegay inuu danta dalka u qabanayay oo san dastuurka khilaafin laakiin wax inta laga taxadirayay nin shakhsi haduu doono head of state madaxa dalka ha noqdo ninka ugu xoog badan dalka oo kursiga adduunka ugu sareeya ku fadhiya ha noqoto inuu ka tilaabsan karin arinta kula in saa u hirgashana shacabka laftiisa ku xidhantay wacyiga shacabka ku xidhantay haduu soo shacabku wacyi lahayn oo si kala garanin ninkaas uu iska soconaya hadii la moodo dalka inuu isagu leeyahay dastuurka leeyahay ciidanka leeyahay wax walba leeyahay wala daawanaya maalinta uu leecana wala balaqaysanaya sida hore u dhacdo kale marka wacyiga dadku inay kor u kaco waa arin laga maarmaan oo aad iyo aad muhiim u ah in mas'uuliyad la iska saaro ilaalintana waa mowduuc weyn mawduuca soo socota ayaynu ku faaqidi doonaa mas'uuliyadda la isaga baahan yahay dadku inay qaadaan qof kasta oo Soomaaliya meesha uu joogo inuu mas'uul yahay taa mawduuca kan ka hadli doonaa